meel kasto ay joogaan ummadda Soomaaliyeed waxaan ka imid anigu Somaliland baan ka imiday magacayga waa Caasha Aadan waxaa la iga qaatay carruurtaydii 2 carruura waa la jir dilay saldhigga New Hargeysa ayaa la igu garaacay carruurtana waxay iga qaatay ninkii dhalay oo la yiraahdo Maxamed Haakaar ninka bari horaan kala tagnay 2015 bishii 7 baan kala tagnay dabadeedna wuxuu damcay inuu awlaadiga qaato 5 baan u dhalay 5 ilaa maalintii aan dhalay ilaa iyo maxaa la yiraahdaa maanta awlaadeeda aniga haystay wuxuu damcay awlaadi inuu xoogiga qaato maxkamad baa isiisay maxkamadii maxay heeday muu tagin ciidan buu soo dalbaday ciidankiiba awlaadi 2 igaga qaatay jeelka Hargeysa maxay saldhigga bariga saldhigga New Hargeysa ayaa la igu dhex garaacay carruurtii la igaga qaatay 2 la igaga qaatay markaa wiiliga gabadh baa la igaga qaatay saldhigga dhexdiisa la igaga qaatay isaga ay xidhay 3 nin oo ilma adeeradii ah ayaa maxay heeday garaacay oo habeenkii oo lili garaacayay oo carruurtii iga qaaday ninkii oo saldhigga dhex jooga ayaa carruurtii la siiyay 3 baan markaa kala soo cararay waxaan la soo hoos galay dawladda Puntland ayaan la soo hoos galay Somaliland waa dalkaygii maxaa la dhahdaa Puntland waa dalkaygii Soomaaliya waa dalkaygii waxaan ka codsanayaa ummadda Soomaaliyeed waxaan ka codsanayaa madaxweynaha Muuse Biixi Cabdi 2 carruura ee xooga igaga qaatay Maxamed Haakaar waa nin saxaaqa wuxuu ii soo wakiishay ciidan wuxuu igaga qaatay boolis saldhigga dhexdiisa la igu garaacay waxaan dawladda ka codsanayaa in carruurteeda la iga qaado 2deeda carruura bugtaan baan ku soo koriyay iyagoo bukaan haysanayay uu nacay markay bukeen uu iska daadshay maalintii caafimaadeen ay maxaa la qurux bateen waxbarasho wax walba ku daray ayuu maxaa la ii soo xoog sheegtay marka waxaan ka codsanayaa dawladda Somaliland waxaan ka codsanayaa madaxweynaha Muuse Biixi Cabdi carruurteeda 2deeda carruurayna ninka la iga qaado Maxamed Haakaar ma xishooda weeyaan waxa weeyaan fircoonka qarniga weeyaan waxa weeyaan dalkayga aan ku dhashay ciidan markuu ii dalbaday aan xamil waayo hooyaanahay ayaan uga yimiday ana uga yimiday wadanka waana jeclay aan wadankayga mana caaya mana cambaaraynayo dadkayga dalkayga intaba waan jeclay laakiin waan u adkeysan waayo waan uga yimiday 3 ubada ayaa la soo fakadan la soo cararay waxaan la hoos joogaa calanka Soomaaliya calanka Puntland baan la hoos joogaa ummadda Soomaaliyeed baan la hoos joogaa waxbarasho haday tahay guri haday tahay ay degaan intaba haday tahay iyaga la hoos joogaa waxaan doonayaa walaalahayga muslimiinta in carruurtaasi waxbarashadooda iyo gurigay degi lahaayeen maadaama godkii aan deganaa bahal igu galay oo ka soo fakaday aan Somaliland maanta aan ka soo qaxay waxaan doonayaa in carruurtaasi waxbarasho la igu daro hooyana ilmahayga waan nacay inay kala gumaysato oo la qaybiyo naaga saa loogu qaybiyo waan diiday 2 uu haysto oo uu gumaysanayna insha Allah marun bii Ilaahay gacanteeda ku soo celin doona carruurtaydaasi marka waxaan doonayaa 3 carruur maanta aan gacanta ku haysto hooy ay degaan iyo maxay hayto iyo iskuul ay dhigtaan in noloshooda ina la iga kafaara qaado aan waxaan ku hoos joogaa calanka Soomaaliya iyo dawladda Puntland ayaan hoos joogaa maanta shacabka Puntland dawladda intaba dawladda Somaliland shacabka Somaliland intaba waan la hadlayaa awlaadaydaasi ninka hala iga soo qaadan lahayn Maxamed Haakaar waa fircoonka qarniga waa nin saxaaqa waa nin maxishooda waa nin aniga oo ooridiisi ahaa oo kala tagnay ummadda Ilaahay way kala tagaan Soomaaliland Maxamed oo dhanba way kala tagaan inuu xidho uu ciidan ii dhiibo oo yiraahdo garaaca naagta garaaca oo carruurta iga soo qaada ma yahuud baan ahay anigu mise Tigray baan ahay anigu Axmaar baan naag Somaliland u dhalatay baan ahay anigu ku dhashay laakiin wuxuu ii habar wacday waxa weeyaan jananka ciidanka daba galan ninka la yiraahdo ayuu ii habar wacday uu in adeer ii hiili hooyo iyo ilmaheeda halka loogu kala hiilinay ma garanay anigu ma arag waligeyna hooyo iyo ilmaheedii oo 2 qolo laga kala dhigayo loo kala hiilinayo dawladda Soomaaliyeed anu kuma arag magaalada cidna anu kama aqaano 3 ciyaal fadligooda anu soo galay magaalada ilmahayga waan diiday inaan tuuro oo naaga gumeystaan oo iskaga tagan magaaladana meeshaan doonaan ku noolaado waan diiday oo isku kari waay ilmahayga inaan meel kula dhinto god hadii aan galayna inay la galaan jannada hadaan galayna inay la galaan ayaan ku tashaday anigu imka waxaan joogaa
waxaan joogaa 2 maalmood ayaan joogaa magaalada qofna kama garanayo anigu qofna kama garanayo bes ummadda Soomaaliyeed ubadkayga inaan la soo hoos galo ku korsado cidna dambi kama gelin Soomaaliland waa dalkaygii waa dadkaygii waan jeclahay qofna waligeed dambi kama gelin waligeed xabsi leeguma xidhin intaan jiray wallahi inaan wali la xidhin ilaa ninka Maxamed Haakar oo xidhay oo isla galo ma halagu taxgaloomo oo naaga dabada saa uga soo riixayeen waxa nin naaga wadaya awrawada midna kaama leexday Soomaali tiraahda ya dad baa dabada ka soo riixay ka soo qaada leh